kulanti wanaagsan dhammaan daawadayaasha ku xidhan malcab.com kuna soo dhawaada barnaamijkeena socdaalka malcab oo toddobaadkan kusoo qaadan doono munaasabadii lagu gunaanaday Horyaal League ayaa ka koobnaa 4 kooxood iyadoo la dhex dhigay koob waxaana sanadkii labaad oo xiriir ah loo qabtay xalfad lagu shaacinayay kaalmaha ay kooxuhu kala galeen intii uu socday Horyaal League. Haddaba inta badan barnaamijka socdaal ayaan ka wada daawan doonaa munaasabadaasi xiritaanka horyaalka uu ka socday garoonka Turkiga ee magaalada Hargeysa. ciyaartooyda liiga ka soo qayb gashay kulligood inay maanta wada joogaan ayagoo wada caafimaad qaba oo lixdooda lixaad u dhanta horta waa wax la dhihi karo waa guul waayo waa taqaana xamaasadda inka kubadda ciyaaray waayo xamaasadda waa marka qaarkood way ka xog badnaanaysa saas ayada tahay ama garsooraheena ha noqoto ama ciyaar wanaagga dhankiina ha noqoto waxaan maanta marag aan u nahayna kulligeen wada bad qabtaan hortaas waa wax lagu aad loo farxo meeshan fursad ayaad ka dhiganaysaa oo isku weedaarsataan aaraa cusub ama afkaar cusub haddaa haysataan ama waxyaaba aad keenaysaan leedahay waxaan si liiga loo hagaajiyo waxaan hala bedelo ama waxaas marka guddigan daway joogaan ama gaar ahaan ama tiim ahaan oo kale hadda afkaartaas kabtaga soo dhiibtaan dan waa lagu manaaqshoon karaa 5 daqiiqo iyo 10 daqiiqo waa la siin karaa marka anigu dee wax kale hadalka kulligood inta badankood waa la wada dhahay wax kale nima leh enjoy your time waqtigaas meeshaas aad ku luminayseen waa waqti aad u fiican caafimaadkiina u fiican maskaxdiina u fiican jirkiinana u fiican haddii lagaa badsho that's life haddaa badasina that's life ayadan marka intaas qof kastoo marka garoonka soo gelaysa intaas haddaa fartiintaas madaxaaga aad ku xiran tahay dee waxba naga halaabi maayo adoo qoslaaya soo gelaysa adoo qoslaaye ayaad baxaysaa wixii haddii lagaa badiyay meeshaa uga tegaysaa soo maaha waxaa jirta waqti aynu ku bilownay intiina ogeydeen 2 kooxood oo in badan aynu ku soo ciyaarnay haddana wuxuu marayaa waxa weeye xafladii waxaa heday 7 ayaa imika dhammaanaysa liiga aynu caawa bilaabi doono watii 8aad 2 kooxood oo inta soo gudubnay waxaa nimid 4 kooxood taasina waxa weeye waa mid horumar mar walba sheegaysa waxaan rajeynaynaa inaynu markaa liigaga dambe aynu ka kordhino oo aynu 6 iyo 9 iyo 12 ba gaarno insha Allah kulli faa'iidada kubadda leedii sheegi maayo waa garanaysaa waa exercise marka koobaad in maaragtay xanuunadan imika waddankeena ku badan ee cuntooyinka kala nooca ee inoo soo dhoofiyaan isticmaalna laga qaaday macaan ka mid ah inaynu kaga badbaadno ama waxaynu halkan
maanta inoo fadhiyo macallin Cabdullaahi oo isagu member ahaa ciyaartii wareegii ka horeeyay haddana xafladan aad iyo aad ugu soo qayb qaatay qabsoomideeda waxa kale oo mahadiska mar labaad mahad celinaya dhammaan xubnihii la soo shaqeeyay ee guddida ahaa waxaan ka soo noqday waxaan u sheegay ciyaartooyada cusub ee liiga ku cusub كلهم ليجن واحد وين والليج صعدي والليج دقاقي والليج هوشي سوتا عيارتك استمر وعاود كوخ كبيرة كله الشروع لا تهلا لما واحد إذا ما أنت واحد بقول كيو بقول ما أنت واحد كفر حسنا هاي ليجا نصر لما هذا صغار كلنا ما أنت هذا الله عيارتي هبل أيه نقدر عام عيارتي هبل بعد هبل كم مكانه خلا خاصة يلقاه هم علينا نمر كذا لما عيارتين أد بمهسين ما دام هذه إيرانية بدقق صاحب جود يبدقق كذا لما عيارتين مهسين هذه نص الشقيين شروطه ينتهي هني شقة أيضا أد بنوم العلمية عيارتين عصبة حلا إن شاء الله تعالى يجيب كل الدوام حنوصل دويننا قاعد مفروم نوصل دويننا واحد الدولة يهون شروع ذا هولها ودليل بليه هاي إن السد وقف قاضنا waxaan dad soo dhaweynaya hadalkayga maantana maxay yahay meel kasta oo laga imanaya oo maxay yahay waana isdhexgal aad iyo aad la isku dhexgalay weey waxaynu u baahanahay walaalayaal inaynu maxay yahay horta garab taagnaano dhammaan waxa weey guddida iyo maxay yahay garsoorka waxay soo saaraana maxay yahay inuu hogaansanaano waxa kale oo sheegay horta waxa weey ninka maanta yimid iyo ninka hore u ciyaarayay waxa weey the same ayaa loo yahay ayaa loo yahay markaas sida daraadeed waxa weey wax alla wax la isdheeriyo ma jiro waxa dhici karta maxay ahayd kulay markay guddidu soo xulayso ragga maxay ahayd liigii wanaagsanaayo kale waxa dhici karta inay dad tabtaan waxyaalo marka waxaas wax iska fudud weey waxaan doonaynaa ta kale inay nin kastaba kulay rag mas'uuliyiin wada shaqeeyanahay inaynu dhaqaalo u doono kooxaha oo in maxay ahayd inaga fududaato hawlahan oo dhan ayaynu u baahanahay waxaa la sameynayay in kabtanada kooxuhu ay codeynayeen guddiduna ay codeynayeen qaybta imika intii ku codka badnayd unbaa faynalka imanaysay kadib inta faynalka timaada wax loo siiyay wax qabadka ay garoonka ka sameeyeen si walba garoonka 60% waxay ahayd guddida iyo garsoorka kabtanadu isku 60% bay ahayd qiimeyntoodu 40% waxay ahayd garoonka ciyaartoygu waxa uu ka sameeyay insha Allah kooxdii horyaalka ku guuleysay waxa kooxda midnimo oo 3 dhibcood ku qaaday kooxda kaalinta labaad gashan waxa FC Cabsood oo iyaduna ku qaaday 12 dhibcood marka waxa garasa liiga sanadka uu iska adkaa oo hal dhibic oo ciyaarta ugu dambeysay waliba laba garoon la kala geeyay ayaa lagu kala qaaday kooxdii haddaan sharaxo kooxdii ugu weerarka fiicneed waxay kooxda FC Cabsood oo 35 gool dhalisay kooxda midnimo oo koobka qaaday ayana 40 dhalisay ساعة صح 20 جول بدليين FC سامي 20 جول بدليين كوح يقول دفاع في عن واحد كوح سامي وشل 20 جول شبكة تابتي كوح عصود أيها كوحتي أو ستيدي 20 جولة من دي من السجال 20 جول كوح جولات يقول بدنا قد ناحية FC ساعة صح أو سجال 20 جول قد لي كوح هذا يقول بدنا إيه كارك عصان كقاطع واحد كوح هذا من نمو صدق كارك عصاني قاطين FC عصود بكوحتي أو ينن لبا كارك عصاني قاطي saxan sax laba kaara casaan qaateen kooxda Saami waa ugu kaariyareed oo qaatay hal kaara casaan yeelo kaarka ugu badan waxa qaatay kooxda midnimo oo 13 kaar qaatay kooxda FC Cabsood 9 kaar bay qaateen huruuda FC Saamina waxay qaadeen 6 kaar huruuda gool dhalinta waxa inoo qaaday gabax oo 13 gool dhaliyay waxaana uu ka tirsan kooxda saxan saxo waxa ku xiga Suhayb Mario oo 12 gool oo kooxda midnimo ah Mukhtar Fuad ayaa ku xigay oo kaalinta saxaas oo gool 9 gool ah waxa kaalinta fa ku jiray Qaadir oo 8 gool ah waxaana shan ku jiray Macagaab oo 8 gool ah asisteena ugu badan waxa sameeyay gabax oo 6 assist lahaa waxa ku xiga Cabduladiif oo Saami ka tirsan oo 3 assist lahaa iyo Bidixo oo 3 assist lahaa Maxamed Deeq waa ku xigay oo 2 assist lahaa abaalmarinadeeni waxaan kan yidhi ciyaar best player baa jiray oo man of the match ciyaarta marka dhamaato dhibcaha ugu badan waxa haystay gabax oo ku qaaday 15.8.0
wuxuu ahaa best playerka man of the match la bixin jiray waxaa isaguna kaalinta labaad soo galay nimcaan gaab oo isaguna 7.80 kusoo galay kaalinta labaad ciyaartooyda man of the match ku badan ku guuleystay dhibcaha ugu badan ka helay waxaa isaguna waxaa kaalin saddexaad ugu dambaysa galay naasiro oo ah difaaca kooxda midnimo oo 7.80 dhibcaha rating ka soo xareysta ahaa saddexdii ciyaartooy ee ugu tartamayay best playerku waxay ahaayeen axmed naadi iyo suhayb mario waxaana xidig ugu fiican ku guuleystay gabax waxaana waa ciyaartooy gool dhalinta badnaa sidoo kale ugu assistiga badnaa waxaan rajeynayaa kale inuu halkan iman doono oo abaalmarinta guddoonsiin doono insha Allah gabax sanadka si fiican buu shaqaystay meelo badan ba hadday tahay team of weekana ninka hogaaminaya buu ahaa ciyaaruhu waa midoo nabaday ku caayihiin cudud wardina lagu dhisaa ciyaaruhu waa midoo nabaday ku caayihiin cudud wardina lagu dhisaa intaasna waxaan ku joojin doonaa barnaamijkeena socdaalka malcab oo toddobaadkan kusoo qaatay xalfadii lagu soo gunaanaday horyaal intayna ku kulmi doono barnaamijkan oo kale ah haddii alla yidhaahdo waa anigoo xasan xootaa axmed taye qaran xiyadiin ariido iyo dhammaan bahdii malcab oo isku duuban oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo